jaaleel kusoo dhawaada youtube-kayga Axmed Hooyo waxaan jeclaan lahaa like subscribe iyo share bina tiraado saaxiibada la wadaag jaaleel maanta barnaamijkeena waxaan ku soo qaadanaynaa taxsiida marwadii weyneed Dictoressa Xaawo Cabdi Dhiblaawe ayaa ku geeriyootay magaalada Muqdisho. Xaawo Cabdi Dhiblaawe waa taqaanin oo Dictoressadii in badan bulshada Soomaaliyeed u shaqeynaysay wax qabadkeedii iyo wixii qabato loo muuqda. Dictorada way geeriyootay Allah u naxariisto ehelkeedii qaraabadeedii iyo familka guud ahaan iyo Soomaalida kalaba waxaan leenahay الله يديك الصبر سيء. جالي مركو ورث واحد ويجينا تاريخ ذي يو حقبت كذي دبديت بان حاول عبد كشكين دونا أنا أقوله كم بذا ذات مرقات هذا أو مرقات فرق راي ماذا حاول عبد أشوف في عن وقرن حقيقي جالي بالمركو ورث أنا سنة جالي تاريخ من الولد كذي. بسم الله الرحمن الرحيم. معي هو حاول عبد البلاوي وحنا شكون سجال بقولت صد هفرتن يتضبدي وحنا كل شحمر عبد العزيز ديستريك وليجر وقت جالس كان بأمحارو. مخلص جالي Dictoressadu waxay ku dhalatay degmada Cabdi Casiis oo kama amxaaro bariga la oran jiray magaranaysaa halkaas ay ku dhalatay markii dambe Dictoressadu waxay tagtay wadanka Ruushka oo bariga Soviet ahaa jiray Soviet Unionkii taqaanin garanaysaa halkaas bay wax ku baratay caafimaadkii soo baratay markii dambe Soomaaliya ku soo laabatay digfeer iyo meelo fara badan oo martiin iyo ka soo shaqeysay isbitaalka imiga ay joogtay Xaawo Cabdi ee lagu magac daray degmada Xaawo Cabdi ayayna ka shaqeynaysay markii dambe hay'ashii Dictoressadu Xaawo Cabdi way jaalgaan inooga sheekayso hospitaalka Xaawo Cabdi. aniga isbitaalkaygu wuxuu ahaa kii Soomaalida oo qof kastaba ay iimaanaysay albaabada u furnaayeen markii ay abaarta dhacday oo qaxootiga dad Soomaalida isu cuntayna oo magaalooyinka laga baxay magaalo kasta waa laga yimid dhul oo adiga xoogaa ee baan deganay aniga dadkii soo qaxay biyo iyo deegaan iyo caafimaad waa siiyey waana degay runtii jaalyaal biyo iyo wax walba u baahnayeen iyo raashin ayay siisay wayna soo dhaweysay arinta ana maqaatigeeda dhowr jeerna anoo ka socda TV-ga Universal bariga aan shaqeynayay booqday jaalyaal meeshaas waxaa soo degtay 9,000 15,000 oo qoys oo qoyskii uu yahay 6 qof waa 9,000 qof 9,000 هيادان وقالت جيران ده جري يسوع وردا دتك يلا أيه وحي ما جيران هيادا وانا أبيل كيجا مركا أبيل درس هذا ولا يسوع جواب جير مرول ومخلص جالي الحياة كلمين هي اللي هدت فرب بدن أيه يميت أو إلا سكاشن كون قوس أيه تري مقرنسا مركا جالي ساشة كون قف وكركنسا أنت سو كون قوس ككوبن مقرنسا أيه سود ويسي ومقرنسا حاول عبدي isbitaalada deegaan dhan waa loogu magac daray oo xamar iyo waxay u dhaxaysaa magaranaysaa afgooy ay u dhaxaysaa Xaawo Cabdi marka waa deegaan dhan ayaa loogu magac daray isbitaalka ka furtay dadkii gargaartay badbaadisay waana markii la qaxay qixi hore oo siyad barnaamijka la saarayno dad baa u tagay oo magaranaysaa soo dhaweysay qixi dambe xoogana si weyn u dhacay oo Itoobiyaanku markii xamar ay soo galeen 2007 ay raad jaalay 2007 sidoo kale dad badan ay magaranaysaa jaalayaal ay soo dhaweysay marka Dictoressadu waa qof wanaagsan bulshadeeda si weyn u soo dhaweysay una adeegtay jaalyaal arinta marqaatigeedaan ahay Dictoressada si wanaagsan baan u garanayaa aad baan u garanayaa markii uu horeeyay aan si fiican u bartay waxa ay ahayd markii ay Universal TV aniga la shaqeynaa barnaamij inta ka duubnay maalin doorka xilliga oo kale dabadeedna magaranaysaa habeenka fiidiyowga laga sii daayay telefishinka Universal bariga soo warbaahintu way adkeed هذا فيسبوك يوتيوب واحد أركيز يجري ما هو بكجري مجري مركا تيفيga waraysi ka qaadnay dhibaatada meesha jirta iyo dagaalada meesha ka jireen 2007 ay magaranaysaa markii aan video ka qaadnay oo Universal habeenkii laga sii daayay ayaa waxa daawada dad eerkeeda waxa jecel gabarteeda inay tahay oo ruushka meelaha dibadaha wax ka bareereysay dawladda markii dambe ku laaftay ay sheegtay ugu tiri TV-ga habeen maalinta aad warasta habeennimadii ayaa la daawada ay ugu tiri cajiib ayaa noqotay وأنا مرحبا بسي طبعا وقف حصل برتي وتعليل لكن تكنولوجيا إلا دقدقة أي جالس انتهي مركا الله يبقى يكون نقطي مقرنسا مركا التورس سوي أحسن وقت بس كوسي برني طبعا وحنا مهم أنا دوقاتين سيدو كلا حاجة في ملك نواس قرنيني مركا قف أدون أحسن أد بان أبرت Dictoressada waxaa xusid badan jaalayaal waxa ay kamid tahay dadka Dictoressa caqabadkooda ay muuqdo tusaalahaan hadda waxay tiri waa la kaalmay waa run la kaalmay heshay oo magaranaysa dadka u qeylsanaysay laakiin dad badan oo dadka inta u qeylsada aan sidaas wax u gaarsiinayn baa jira iyadu waxa ay ahayd qof cajiib ah
hosbitaalkeeda dadkay kusoo dhaweynaysay bilaasha lagu daweynayay dad fara badan oo deegaan ay siis afkeeda ka sheegayso maqlayseen dad fara badan oo aniga ila mid yihiin marqaati yihiin iyaduna way garanayaan waxay qabatana way muuqanayaan garanaysaa marka oo wax lagu ammaano wax muuqda ay qabanaysa jacayl oo magaranaysaa tan kale waxa ay ahayd doctoresadu marwadu magaranaysaa hooyadeen walaasheen eedadeen habeerteen wax walba noo tahay qof aad u wanaagsan oo gaar ah oo dadka soo dhaweeya marxabeeya magaranaysaa nabadoon ah oo isku keena waxa xasuusta iyadoo dadka shirisa deegaanka oo isku soo dhaweysa oo hadii wax dhacaan xataa si hoos loo xalliyo oo magaranaysaa bulshada isku xiran dadka deegaanka meesha jooga aqyaar ay u tahay mararka qaarna xataa mararka qaar u gurma jirtay oo bulshada deegaamada ku nool ee tuulooyinka ku nool ayadoo dawo wada inta u geyso ay ku daweey jirtay hooyooyinka uurka leh kuwa dhibaataysan dhaawacyada iyo waxa soo garanaysaa marka qof aad u wanaagsan ay ahayd oo soo dhaweyn leh oo garanaysaa hal jeer waa taqaanid qofka doctor noqdo ama wax barta ama si kale bulshada iskala weynaatid bogta laakiin iyadoo waxay ahayd dad qof garanaysaa bulshada ka mid ah bulshada ku jirta marka horena sida caadi qoys noloshiis caadi tahay ka yimid oo nolol hoos ah dareem karaysa marka qofka nolosha hoos ka yimid wuxuu yaqaanaa baahida dadku garan kara magaranaysaa marka qof waxay aad u fahmaysa dadka ku dhex jirta dhibaatadooda magaranaysaa ka warhaysa in badan jaalal marka aniga waxaan aad u aadi jiray afgooyo oo beeraley halka ka ah marka maadaama aan jidka marahayo oo soo marahayo mar walba soo mari jiray wayna jeclaa xitaa inaan soo maro dad xarada soo aad soo mar waxaan marka soo baxday orin jirtay marka qof aad gacal u ah oo wanaagsan ay ahayd jaalal dabcan waxa soo xaawo imika way geeriyootay amaanta aan amaanahay oo waxay leedahay fiiri wax ay leedahay oo ay mutaysata ayaan ku sheegay ma inaan ugu amaanahay aniga gaar iyo rooneen inaan ugu garanahay inaan qaraabanahay kaliya wax ay tahay ayaan ku sheegay jaalal garanaysa marka jaalal qof aad cajiib u ahayd aad u wanaagsan doctor Saad Abdi waxa ay dadka farakutiriska ah ee waxa ay qabteen ay muuqdaan hospitaal haday tahay ay dad daweynaysa iyo dad markuu haysa anu journalist ah fiiri qofka runta sheegayaan aqaana wuxuu qabanayaan aqaana wuxuu sameynayaan aqaana mararka qaar xataa anigoo TV ka socon ayaa maraxay oo afgooy ka soo laabta ama afgooy ku sii jeedo markaan soo maro oo aan magaranaysaa la joogo waxa laga in la joogo ama aan raashin wax ka meesha ka cuno oo magaranaysaa qof gacan furan oo soo dhaweyn badan oo magaranaysaa aad aniga khaasatan igu fiicnay ay doctor Saad Abdi dabcan waa ka tiiraayanahay geerideeda marka way wadi jirtay marka way tusay isbitaalka afarta dhinac tusay meelaha ay tusay journalist aan fiir qofka markuu wax qaran hayo journalistaas uma soo dhaweey marka dareemaysa wax ay wado oo dhan ay saxiihiin oo is waxba la laabaynin magaranaysaa sariiraha sida ay yihiin meelo sida ay yihiin dabcan waana ku kadinay anoo soo iska soo maray balan ku tegin dareemi karaysa magaranaysaa marka qof cajiib ah oo marqaati furhaya oo ku celinaya qof aad u wanaagsan wanaageedii ayaan la hilmaami karinin jalayaal wax rajeynayaa gabdhaha iminka ayadu ay ka tagtay ee jooga hospitaalka in sideeda ay ku sii wadaan in bulshada u wanaag falaan in bulshada ay ku dhex jiraan bulshada ay ka dhex bixin bulshada aad ugu dhex jirta aniga waa ka warhaya doctor dadka la kulmaysa odayaasha hooyooyinka carruur dadka ka wareegaysa aad ugu horeysa magaranaysaa sida inay noqdaan bulshada gacal u noqdaan bulshada magaranaysaa wixii hooyadood qabanaysa ay qabtaan meesha ka sii wadaan ayaan rajeynayaa dabcan waana ku baraarujinayaa magaranaysaa wixii hooyadood qabataan ka warhaya wanaagga sameeysan ka warhaya wanaagga inay sameeyaan oo si wadaan waa rajeynayaa dabcan aniga iminka markaan xawa abdu marqato furaha idinkana hadhow bariso hadii tiinu timaado ilaa la joogi maxay qof walba wuxuu qabtaa loo jeedaa wax qabad muuqda ay hooyo qabanaysa inay qabtaan baa ayuu rajeynayaa jale marka arintaas ko waxa uu hadlayay doctor Saad Abdi oo magaranaysaa ay ahayd haliyay nabadoon hogaamiye bulshadeed doctor Saad dadkana magaranaysaa caafimaadkooda sidoo kale jaalayaal ku dadaalisay waxa sidoo kale deegma dhamaaba loogu macdalin Saad Abdi tuulo ahayd imika waa degmo waxa laga yaabaa degmada hala siyaan booraan lahaa deegaan weyn ay noqotay jalayaal waa ka tiiraaysannahay geerideeda marwada doctoresada magaranaysaa geeriyootay waxaan leenahay Allah u naxariisto magaranaysaa dadkii ehelka ay ka geeriyootay carruurteedii familkii guud ahaan sabir iimaan Allah ka siiyo jalayaal
أحمد تويو ومقرنسا وحوي كتير عن سن دكتورة حاوى عبدي ومقرنسا جيريوتي دبعا دكتورة سيدتكو هاد قف هلي بالشدو يقانين هيد لكن أنا كعرقي قارة وأنا صاحب نهاي وأنا كل حيرانا هاي ومقرنسا إنك صوت حمر على تقويا هاي سدان تقل لها أن بوقان لها خباشي الله نحريستو أنا كان الله مقرنسا سبق يسيو في ملكي إيه دتكو الله سبق يسيو جاليا وقالنا qof walba Soomaali ha ogaado qofka wax qabta ee wanaag fala ee bulshada wax u qabtaay sidaan oo kale ayaa ruux u sahaya oo dad fara badan oo marqaatiyaal ay u tilmaamayaan qofkaasi waxa uu yahay jaalaya inta aan dib u kulmi doono Axmed Tooyo waxaan leeyahay nabadgelyo jaalaya